السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawadayaal waxaa halkan idinkugu soo gudbin doonaa jalayaasha caalamka ee ugu mushaarka badan sanadka sii dhamaanaya ee 2020ka. kadib xog baaris lagu sameeyay maalqabeelada caalamka iyo haltidooda ayaa sanadkan waxaa la soo bandhigay agtarada sameeya aflaalta iyo mushaarka ay sanad walba qaataan. waxaa halkan idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah 10 agtar ee ugu mushaarka badan dunida oo idil. daawada haddii aad ka hesho muuqaalada loocale oo kale ah laag saar muuqaalkan si aan u ogaano oo la soo badalo muuqaalada loocale oo kale ah. mahadsanid. Derek Johnson oo ah jalaaga sameeya aflaalta dagaalka haystana dhalashada dalalka Mareykanka iyo Canada ayaa sanadkan noqday jalaaga ugu mushaarka badan caalamka oo idil. lacag gaaraysa 87.5 milyan oo dollar ayaa la sheegay sanadkii uu mushaar ahaan u qaato. waxaa la ugu dambeeyay lacagna 23 milyan oo dollar oo ay kala saxiixdeen shirkadda Netflix si uu aflaal ugu sameeyo. Johnson ayaa raacay aabihii Rocky isagoo oo noqday feeryahan. guulo waaweyn ayuu ka soo hoyay tartan feerka ah ka hor inta uusan u weecan dhanka iyo jaritaanka, waxaana uu wax ka jaray filmaad kala duwan kaasi oo uu ka mid yahay The Scorpion King, Fast and Furious 6 iyo sidoo kale Jumanji. jalaaga Ronald oo ah ganacsade sameeya aflaalta oo la dhashay dalka Mareykanka ayaa sanadkiiba wuxuu mushaar ahaan u qaataa lacag gaaraysa 71.5 milyan oo dollar. lacag ka badan 20 milyan oo dollar ayuu ka sameeyay hal filin oo kaliya. aflaalta hadda uu soo wado waxaa ka mid ah Free Guy, The Girl, A New Age iyo filmaad kale oo uu ka mid yahay waardiyihii xaaska. Mark Wahlberg waa jalaa majaajiliiste ah oo u dhashay Mareykanka, sameeyay aflaalta Hollywoodka. hal filin oo uu sameeyay wuxuu Netflix ka noqday filimka saddexaad ee loogu daawashada badan yahay. malaayiin dollar ayuu ka sameeyay aflaalta musalsalka ah. sanadkii waxaa la soo wariyay inuu mushaar ahaan u qaato lacag dhan 58 milyan oo dollar. hagaag dhinaca Hindiya waxaa ka mid ah 10 agtar ee ugu mushaarka badan dunida oo idil. Akshay Kumar, agtarkan oo Soomaalida ay u yaqaaniin Mr. Bond, jalaaga caanka ah ee reer Hindiya. Akshay Kumar wuxuu sanadkan ka mid noqday 10 agtar ee ugu mushaarka badan caalamka oo idil. Akshay Kumar oo ka mid ah jalayaasha ugu caansan Bollywoodka waxa uu jalay in ka badan 100 filim 30 sano ee la soo dhaafay. waxa uu sanadkii mushaar ahaan u qaataa lacag gaaraysa 48.5 milyan oo dollar. waxa uu noqday agtarka kaliya ee ka soo jeeday India kala mid noqda jalayaasha ugu mushaarka badan dunida. inta badan haltidiisa ayaa la sheegay inuu ka soo helo xayeysiinta oo uu u sameeyay shirkadaha waaweyn ee caalamka. hadda waxa uu ku hoolan yahay filim lagu magacaabo Bell Bottom. Akshay ayaa lacagaha ka sameeyay qadaraasyada jarista filimada iyo ganacsiyo gaar ah oo uu leeyahay, kuwaas oo uu ka mid yahay website-ka bandhigyada lagu shaaciyo oo lagu magacaabo The End. atoorahan ayaa horay mar kasta safka hore ugu jira isbarbardhigga lagu sameeyo jalayaasha dadka maalqabeelada ah iyo kuwa saameynta ku dhex leh bulshada. sidoo kale diiwaanka guud ee The Forbes majalada la yiraahdo ee ka faaloota arrimaha maalqabeelada iyo ganacsatada ayuu Akshay Kumar uga jiraa lambarka da'diisa la midka ah ee 52aad. filim soo saarayaasha Hollywoodka ayaa lagu soo waramayaa in hadda ay tartan ugu jiraan sidii ay Akshay Kumar oo ugu soo muuqan lahaa filmadooda. Jackie Chan, agtarkan ka soo jeeda gobolka Hong Kong ee dalka Shiinaha
ayaa caan ku ah aflaanta dagaalka iyo majaajalada isugu jira. waxa uu sanadkii la soo dhaafay sameeyey in ka badan 5 filim, wuxuuna bishaar ahaan ugu qaataa lacag dhan $40 milyan. inkastoo lacago badan uu ka helo xayeysiinta, haddana waxa uu noqday jalaaga keliya ee ka soo jeeda dalweynaha shiinaha ee ka mid noqda jalaayaasha ugu bishaarka badan caalamka.